waxaa jiray wiil iyo gabar ay calaaqo romantic ka dhaxaysay. wiilkii ayaa habeenada ka mid ah waqtiyada ka mid ah waxa uu dhahay baby kala kacis ma jiro miyaa. waxay ku dhahday maya. markaasuu dhahay qof ya isgaranno wax cun video ama sawir. markaasay dhahday waxaas ma banaana. markaasuu uga sheekeeyay inuu guursanayo ay calaaqo run ka dhaxayso. markaasay tiri wax badan ayaa la wada socday. kadib waxaa soo dhamaaday calafkii. waxa ay guursatay wiil abtigeeda ah oo Yurub ka yimid. igaarkii wuu xanaaqay. gabadhii ayuu wuxuu kala kortagay calaacal iyo qaylo. waa dinacday qof ay iga doorsatay. subaxii dambe wax allaala wixii oo qaas u ahaa ama sawirro gabadha ka hayay ama video ka hayay ayuu subaxii dambe soo geliyay internetka ama social media isagoo u maleeya inay tahay argudasho uu ka argudanayo gabadha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. galab wanaagsan, maalin wanaagsan, xil walba ay ku tahay wanaagsan. magacaygu waa Cabdullaahi. haddii aad iga daawanayso Facebook fadlan page-ka like saar. haddii aad iga daawanayso dhanka YouTube ha ka ilaawin subscribe iyo like inaad dhacdhac ku siiso. waxaa jiray muwaadin Spanish ah magaciisa la oran jiray Mario Costeja Gonzalez. sanadkii 2009 isagoo iska dhex wareegaya internetka sidaadoo kale ayaa waxaa ku soo dhacday fikrad ah in uu magaciisa uu ka baaro online-ka ama Google-ka si uu ogaado bal waxa ay Google-ka ka qoreen. isla markiiba waxa u soo baxay war ay qortay journal Spanish ah sanadkii 1998. journalkaas oo la magac baxay La Vanguardia, yacni war la qoray 12 sano ka hor. journalkaas waxaa ku qornaa in ninkan uu gurigiisa beec yahay, taasoo sababtay inuu shiiday oo lacago deymo tiro badan lagu leeyahay iyo fadeexooyin kale. why sidaan ninka toosh looga daba qaatay. ani waxaa aqaanaa qof intuu lacag deynsaday si uu ugu guursado qof kale ayuu lacag ka qaatay kadibna telefoonkiisa waxa uu ku save gareeyay kii deynta igu lahaa. mar walba uu soo waco waxa telefoonkiisa uga soo baxo kii deynta kugu lahaa. almuhim Mario Costeja arintaas aad ayuu ugu xumaaday. dhinaca waxa uu ka dareemay inay tahay ihaano oo sharaf dhac ah. dhanka kale waxa uu ka dareemay in warkani uu yahay war 12 sano ka hor ahaa. yacni ninkan waa hore ayuu iska guday deymihii iyo wixii lagu lahaa. oo nin magaalka ay u kala kacsan tahay aan dhalay waay hadda maba jirto sabab uu warkan ugu sii jiro online-ka. tilaabadii ugu horreysay uu qaaday waxa ay ahayd inuu la hadlo nimankii journalka lahaa iyo Google-ka si ay uga saaraan warkani. laakiin nasiib daro labadaba way ka dhaga adeegeen. Mario ayaa aad uga sii xumaaday arrinkan. kadib waxa uu dacwad u diray ama dacwad geeyay hay'adda ilaalada macluumaadka ee Isbaanishka. markii ay baartay kadib hay'adda waxay amar ku siisay shirkadda Google inay ka bixiso linkiga page-keeda ugu horeeya ama search-ga. sababtoo ah warkani waa war la soo dhaafay aan muhiim ahayn hadda inuu meesha ku sii jiro. balse Google uma aysan joojinin oo waxa ay iyadana dacwad geysay maxkamadda cadaaladda ee Yurub taasoo loo yaqaano CVRIA, taasoo ka dhigaysa in kiiskan uu saameyn ku yeelan doono ururka midowga Yurub oo idil. ugu dambeyn sanadkii 2014 maxkamadda cadaaladda ee Yurub ay ku xukuntay Google inay ka saarto search-geeda warkan ku saabsan Mario Costeja. sidaas ayuuna ku guuleystay Mario Costeja. xilligaa wixii ka dambeeyay waxay maxkamadda cadaaladda ee Yurub ay soo saartay xukun cusub oo la magac baxay The Right to be Forgotten RTBF, taasoo ka dhigaysa muwaadin kasta oo European ah inuu xaq u leeyahay in macluumaadkiisa laga saaro internetka. shardi waa inay ahaadaan macluumaadkaasi macluumaad khaas ah oon group ahayn, macluumaad aan faa'iido kale ahayn aynay qofkan ay dhibaato u keento maahane. macquul maahan inaad gasho internetka oo aad ka hesho waaga yareed muuqaaladii laga duubay adigoo dabada xiran iyo dhareerka iyo diifta ka baxayso, kadibna ay aragto gabar walba ee Soomaaliya joogto, kadibna la waayo gabar ku shukaansata ama gabar xiriir kula samaysa. sidaas si lamid ah xuquuqdani waxay faa'iido u leedahay waxa loo yaqaano fenjiska ama argoosiga cawrada shakhsiga. tusaale, gabar iyo wiil ay calaaqa ka dhaxaysay ayaa wiilkii waxa uu dhahay habeenada ka mid ah waqtiyada ka mid ah baby ma asgaratid
ama kala kicis ma jiro miya waa fahmaysaa waxa ka hadlayo markaasay tiri maya markaasuu dhahay wax qof ay isfahan yani wax garad iska dhig markaasuu dhahay yani video ama sawir ama ay xaga wax la soo tuur wax la soo qabo markaasay dhahday maya markaasuu wuxuu dhahay walaal wax muku sheegaa waa isguursarabnaa fi aakhire baash iska soo farji way aamintay oo wixii ay farjisay wixii la wada socdaba oo waqti badan la gaaraba calaf ayaa soo dhamaaday oo waxa ay guursatay wiil abtigeeda oo Mareykanka yimid igaarkii xanaaq cirka ayuu isla shareeray waxa uu dhahay wadada ay iga tagtay saana yeeshay way xumaysay subaxii dambe waxa loo soo kacay ayadoo wax walbo ay gabadhaasi qaas u lahayd ama ay isu direen oo internetka yaalo asagoo u maleeya inuu ka argoosanayo gabadha inkastoo ay ahayd xuquuq iyo asraar gaar u ah gabadha laakiin mar waxa uu go'aansaday waqti gaar ah inuu ku baahiyo social media xaqa meeshas ka baxay waa xaqa ilawshaha ama RTBF gabadhaasi waxay xaq u leedahay inay dalbato in laga tirtiro sawiradaas iyo fiidiyoyaasha ayada khaaska u ah ee la soo geliyay internetka ayadoo la dhowraayo xusuusiyaadkeeda wax adagna ma ahan in la garab istaago dadka xuquuqdooda raasanaya laakiin arinta mar walba sida uma sahlano waxaa jira kiisas kale oo ay caqabad tahay xalintooda daawo muuqaalka xiga si aad u ogaato macluumaadka kale